hadda waa kaasaa indhihiina ayaa idin macalina sida oo kor ugu soo kacayo waa ujeediin quruxda indhaha wixii kaa deeqayaa hee calooshana kaa deeqaayo isha ayaaba kaa deeqayaaba maasha allah sidaan haddii aa u qasatid hubaal waad ka helaysaa marka hore waa idin salaamo walaalaheyga waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak ilaahay kheyrkiisa hana waafajiyo ramadaanka salaada iyo soonka allah naga aqbalo burka aan isticmaalo waa idin tus walaalahay waxa waaye plain flour waaye burkaas kiilo iyo waxaa ku jirta iyo something waxaana ka isticmaalay adig kiilana ma dhamo nus kiilana wuu ka badan yahay burka ma fahantay qiyaasta 2 ukun ayaan kusoo darsaday wax yar oo cusbo ah haddana waxaan kusoo darsanaya waxaa waaye sonkor 3 qaando ilaa 4 qaando ayaad ku darsan kartaa haddaad doonto waa ka badsan kartaa sida macaanka u jecesha adiga ayay kugu xiran tahay waxaan ku darsaday leebit ayada dhan aan ku wada shubo baakadii oo leebitada ayaan ku wada shubay waxaan kusoo darsaday saliid yar oo 2 qaando ah haddana waxaa waaye waan qasanaynaa insha allah mashiintaas ayaan isticmaali doonaa ku qasanaa koobkaas oo ekeyaha oo buuxo oo caano qandac ah ayaan kusoo daray caano kaligood waaya caanaha caadiga ah waa kan haddana insha allah waxaan sameynayaa intii ayaan isku qasayaa haddii aan u dareemo inuu adag yahay gadaal waxaan uga darsan doonaa insha allah saliid ama biyo laakiin waa idin sheegaa hadda waa kaasaa walaalaheyga tartiib ayaan wax yar biyo ayaan ku daraysaa arkayseen waxoogaa yar wuu ila adkaaday biyihii yar ayaan ku daray waxaan kaloo gadaal uga daranay 1 qaando miyaa ma aqaan oo saliid ahna waan ku daray ayadana sidaas maasha allah oo quruxda ah ayuu noogu soo baxay mashiintu noogu qastay cajiinka wax walba ayaa ka samaysan kartaan walaalahey waxaad ka samaysan kartaan mandaasi waxaad ka samaysan kartaan muufo ceesh baalkii biitse hadda wax yar insha allah waa goynayaa afurki waxaa waaye weli mala joogo wax yar ayaan intaan jarto ayaan ilmaha yaryar insha allah biitse uga dhiga doonaa waa kan walaalaheyga intaas yar ayaan waxaan sameynayaa biitse yar oo mini biitse uga dhiga doonaa caruurta dowlaha idmo intaan kalena insha allah waxaan ka habeysanaynaa afurkeena oo ahay burkii mandaasiga iyo ceeshkii waa kan walaalaheygii oo noo soo qamiiro burkii waxaan sameynayaa hadda waxaan ka bilaabaya inaan fidiyo mandaasigii ayaan insha allah hadda ka bilaabayaa mandaasiga waxaa loo baahan yahay markii aad fidiso inaa xoogaa daboosho hore inaa ka dubto ma fiicno saas ayaan asaga uga bilaabayaa ceeshka markii aad fidisana hore inaa ka dubtaa fiican marka waa kaasaa walaalaheyga hadda waxaan sameynayaa mandaasigii ayaan fidinayaa kuuska waxaa waa isla ekeysanaysaa waxaana sameynaysaa kuus oo xoogaa waaweyn oo kan ceeshka ka waaweyn ayaa dabcan laga sameynayaa maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay xabadiiba in 4 xabo oo mandaasi ah oo qurux badan oo isla eg ay kasoo baxdo ayaa loo baahan yahay waa kan walaalaheyga wuxuu noo noqday 5taas kuus haddana waa soo fidfidsanaynaa walaalahay buraa u baahan tahay inaad korka ka mariso dabcan kaas kale inaad daboosho aa maro ku daboolato si oo maaragta dabeesha kaaga dhicin kor hadhow wuxuu ka noqonayaa adeeg ayuu ka noqonayaa marka oo dabeel ku dhacdhacdo waxaa fiican mar walba inaad daboolato haddana insha allah waa kan mandhaasigeeni ayaan fidsanaynaa waxaa loo baahan yahay inta sidaas inuu kuu noqdo saa-idna ha uga weyneyn hana uga maaragtay yareynin khafiif haddii aa ka dhigtana wuxuu kaa noqonaya adeeg dhexda maka galaysa windi haddii aa weyn saa-ida ka dhigtana ma fiicno cadiin ayuu kaa yeelanayaa waa kan walaalaheyga sidaas ayaa insha allahu tacaala kusoo fidsan doonaa mandhaasigeeni aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin muuqaaladeyda sida quruxda badan aa u daawateen kommentiyadiina quruxda badan waa idinkaga mahad celinayaa waxaan idin leeyahay insha allah maaragta sidaa ii wanaajisiin ilaahay idin wanaajiyo aadaa umahadsantihiin waa kan walaalaheyga sidaas ayaa insha allah tacaala usoo fidsanaynaa mandhaasigii waa kan markii aan gooyena waa idin tusayaa waa isla qiyaas oo sax ah hadhow waxaa kuusoo baxaya mandhaasi oo qurux badan oo dhexda waxba cadiin ku lahayn oo hadhow intaa dhexda ka kala goysid xabadaada sambuuska ah maaragtay aad ka gashan kartid ayaa kuusoo baxaayo waa kan walaalaheyga waa soo dhameeyey intaas ayuu noo noqday mandhaasigii markii aan soo fidiyey waxaan sameynayaa waan daboolayaa
haddana waa kanaa qaybtii kaleeto ayaa maaragtay inoo fidinayaa ceeshkii si fiican ayaa marka hore isku dhexgelinaysaa si oo maadaama cajiinka marka uu khamiir kor usoo kaco isna isdhexgelisid waaye saas ayaa fiican saddexdoo xaba ayaa insha allah idinka tusi doonaa qiyaasta qaabka aan u fidsado adigana haddii aad doonto sidaas ay u fidsanaysaa ama waa ka weynaysanaysaa waa kana walaalahayga burle lagu fidinayo waa un sidii mandaasiga oo kaleeto aan u fidinayni waa isla cajiinkii uun qaybtii aan ka reebtay insha allah sidaas ayaan noogu soo fidinayaa andeen markaas ayaan jikada isla aadaynaa haddii aad rabto inuu iskula kaa ekaado koo waxaa samaynaysaa isha ayaa ka qiyaas qaadanaysaa mid haddaa isdhahda kan kale uu ka yaryaana dabcan cajiinka marka hore iskula kaa ekaay soomaan waxaa samaynaysaa un wax yar ayaad qoroga kor marinaysaa si iskula kaa ekaadaan geesaha haddii uu ka kala dheeryaa sidoo kaleeto wax yar una saas ugu soo taataabanaya videoga waa boobsiis laakiin si tartiib ayaan u fidinoyaa si uu iskula ka ekaado oo qurux iigu noqdo tan kale kaamiradan ku dhowdaha umaleyn in uu weyn yahay markii aan dubo insha allah ay arki doontiin waa kaas walaalahayga sida kaleetona qasab waxaa waaye markii oo dabka la saaro isku xoogaa isu dhexgelaa hadda waa kan walaalahayga waxaan noo dubayaa mandaasigii ayaan koo noo dubayaa mandaasiga ayaan ka bilaabaynaa maadaama marka hore fidiska asaga aan ka bilawnay waa kan asagii ayaan haddana ka bilaabay saliidan waaba ii kululeedbo waxaan ku samaystay sambuus ayaan ku dubtay waa kaas mandaasiga dubitaankiisii ayaan weli ku jirnaa walaalahayga insha allah video kaleeto oo qurux badan insha allah waa idiin soo wadaa oo hoosha oo maaragtay si ay kuugu fududaato iyo adigana u cibaadaysatid adigoo sooman aad ugu daalin especially hooyooyinka aad iyo aad u anfacayo waa ka walaalahayga haddana waxaan samaysanaynaa ceeshkii ayaan dubanaynaa kii koowaad waa kan oo ugu horeeyay waxaa samayn doontaa markuu kor usoo kaco una saliid yar kor ka marinaysaa sida caadada waa soo gedinaya dhinac kale u rogaysaa tartiib waxaa samaynaysaa geesaha ayaa adigoo xoog samaynayn aad ugu riixaysaa marka uu hoos ka gaduutana si dhinaca kale u rog si oo kor kuugu soo kaco saan camal waa kaas walaalahayga maasha allah kor ayuu usoo kacsa arkaysid wax saliid ah ma ka muuqdo asaga dhan maasha allah saliidda wax yar una isticmaalay haddaad doontana saliidda waaba ka deyn kartaa laakiin saliidda waxay kaa caawinaysaa in uu guduud korkaaga noqdo sidaas quruxda badan ayuu kuu noqonaya markaa saliidda mariso haddana xabadii labaad ayaa idin tusaya walaalahayga waa kan arkaysid waa isku wada jiin hadda maasha allah xabadii labaad ayadoo un la gedin ayaba kor kasoo kacaysaa arkaysiin waxaan samaysanaynaa insha allah saliidda uuna wax yar korka ka marine waa soo gedine waa isla sidii uun tii hore meesha ay ka baxda ayuu kana ka baxayaa ma fahanti waa kan walaalahayga markii aan gediyey oo hoos oo ka gaduutay aan sida caadadaheed aan dhinac kale aan u rogay sidaas ayuu kor iigu soo kacayaa maasha allah waa kaas quruxda hadda maba laga sheekeyn karaan ku dhahay waa wareekana fiiri asaga dhan waa soo kacay gudaha markaanoo kale maasha allah hadda waxaan ku dhahay shuwaarmadaada ku shubo yaa ma adaaba u baahanba sambuus alaabtan haddaaba ku afurtabo yaa maba u baahnidbo sambuus maba u baahnidbo iyo saliidiisa alaabtan ayaaba kaaga caafimaad badan kan walaalahayga qaaliga afurkeena sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay waa kan walaalahayga mandaasigana sidoo kaleeto dhexda markii laga kala furo ujeediin sidaas quruxda badan xabadaas kale ayaa xataa idin maaragta dhexda idinka tusaaya xabad kaliya waxaa waa asxaabteyda mala tusinaya laba ayaa idinla tusaya ujeediino all waa same ceeshkii waxaan ku dhahay ka daran waa kaas ceeshkiina maasha allah dhexda sokayaa ujeediino ayaga dhan waa isku wada mid waa saas waa kaas hadda asxaabta waxaan rajeynaya insha allah muuqaalka inuu idin anfacay haddii aad ka heshay fadlan like saar haddii oo maaragtay oo intaan aad soo gaartana oo channelkana aadan subscribe ku ahayn waxaan ku leeyahay baqaylnimada iska daaya gacmaha fura yaa subscribe insha allah tacaala muuqaalka asxaabtaada lasii wadaag sii share garay Facebook WhatsApp meel walba ku share garay intaa muuqaal kaleeto ku kulmeyno waa walaashiin jiijo oo idin leh
الله معك في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. take care. باي باي.